الرحمن الرحيم وبرنامج gaar ah oo aan maanta chance u helay inaanu wareysi gaar ah oo la xiriira waayahooda iyo noloshooda aan la yeelano maxamed iyo cabdi maalik oo ah laba dhalinyaro oo Soomaaliyeed kuna dhaqan waddanka Norway ku bartay kuna soo barbaaray waxaan rabnaa bal marka ugu horeysa maxamed iyo cabdi maalik waa kuwa maxamed ku dhow aad baad u mahadsantihiin runtii codsigan aan noo soo fidiseen aad baan ugu faraxsanahay in Soomaaliland aad runtii interview naga qaadin maanta aan ku kulanno xafiiskeena aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin kow maxamed cabdiraxmaan cabdiqaadir waa magacayga waxaan Norway imaaday 2002 ilaa hadda Norway ayaan joogaa marka ma dhow insha Allah 20 sano ayaa afka ka jareynaa haddii aan marka wax yar ka sheego Norway wax ku bartay dhaqaalaha jaamacadda waxaan ka baxay oo BI-da ama BI Handels High BI oo ku taala Nydalen ayaan dhaqaale ku bartay dugsiga hoose ama dugsiga hoose intiisa badan runtii Norway kuma qaadan laakiin dugsiga dhexe iyo inta ku qaadanay 2006 ilaa 2009 ayaa Hartvig Nissen School dhigtay oo markaas anigoo degnay Holmaliya oo dadku yaqaan badan Öskampen ayaan ka dhigay jiray marka Hartvig Nissen School Västkampen oo runtii dhinaca kale oo marka magaalada marka taa runtii waxay sababtay inaan barka isku aan hore ka arko bulshada farqiga u dhaxeeya xagga cilmiga horumarka waa meesha deganeen waxa ku badnaa ajaanibta dadka runtii soo galootiga familiyada waaweyn ayaa ku badnaa meesha kalena dadka wadankan runtii oo lacagta haysta ama dadka wadanka u dhashay ayaa ku badnaa dhinaca kale u aaday marka wiidargoonka taa marka alxamdulillah waxaan arkay isla markaa in runtii bulshada haddii aad rabtid inaad marka hormartid qofka inuu ku dadaalo marka sida waxbarashada afka ayaa markaas hore runtii iiga soo baxday alxamdulillah maanta waxaan hadda deganahay Sandvika waxaan leeyahay xaas iyo laba caruur alxamdulillah waxaan wadnaa marka barnaamij loo yaqaan Twins Mindset iyo shirkadda hadda aan insha Allah taala aan rabno in aan marka ka miro dhalno ama aasasno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إذن كما علينا سوموديان ميديا بعد سوموديان كسودو هذا ما سنتين إن ما أنت هذا انترفيو كان يرى إذن كقاعدنا هذا إن شاء الله باكر ممكن وحير كشيء عبد المالك عبد الرحمن اللي لها محمد ولا الكيساي متان كيساي لكن وكل دوغنا مركز نقطة باكر وحبر شيء وحيابا وسوقبتي أنا waxaan dugsi sare wadankan ugu soo baxay kadibna heer jaamacad waxa ku qaatay IT oo jaamacadda Oslo ayaan University of Oslo ka qaatay IT programming waxa loo iyo design-ka dhinacaas ayaan bartay kadibna waa isku ognahay wadankan shaqadu waa iska adag tahay shaqo si loo helo marka tahay waliba ajaanib ama soo galooti laakiin alxamdulillah oo maanta isma dhiibin oo meelo badan ayaa galgalay sidaas ayaa shaqadii ugu horeeyay ku helay IT-ga kadibna alxamdulillah ilaahay wuxuu i fududeeyay inaad shaqooyinka saan jeclaas kaga bedelo maadaama aan dhistay network erigaasna si fiican ayaa hadhowda u gudagalayna insha Allah muhiimadda ay leedahay network in la dhisto wadankan maadaama aan bulshada Soomaaliyeed oo barnaamijyo badan uga hadalna Twins Mindset marka background-kaygu kaaban waxa waaye jaamacadda ka soo baxay IT soo dhigtay shaqooyin shirkado badan oo soo shaqeeyay haddana maxamed yaani waxaan isla fadhinaa meeshaan ayaan shirkad ku dhisayna oo caawin doonta insha Allah soo galootiga wadankan sida ugu dhaqsi badan u dhaxgali karaan ama ula jaan qaadi karaan wadankan ku nool yihiin Norway waxaan rabnaa su'aal kale oo la xiriira iyada lafteedu barnaamijkan social media aadka uga caan baxay ee Twins Mindset ujeedka aad u aasaasteen iyo ujeedada ka dambeysay inaad aasaastaan barnaamijkan runtii waa su'aal fiican ujeedka horta badan yahay laakiin haddaan soo koobo ama aan isku dayo in aan wax yar ka sheego waxyaalaha runtii nagu dhaliyo waxaa kamid ah in bulshada ay u baahan tahay horta dad u kaca ama dad caawiya oo la qaybsada marka waxay soo barteen maadaama alxamdulillah wax wadanka ku baranay aan soo shaqeynay
waxaan aragnaa marka bulshadeena inaan markaas ku celi karno marka talooyin iyo runtii waxyaalo kala duwan aan ku caawi karno taana ayaa nagu dhalisay runtii inaan marka the twins mindset aan soo saarno sanadkii hadda la soo dhaafay 9 Abriil 2020 markuu lockdown ka dhacay Norway iyo adduunka dhanba inaan markaas bilaawno ujeedada koow marka daan sheego waa in aan dhisnaa marka civic society ama wax loo yaqaan civilism fana inaan dhisno bulshadeena meel kasta adduunka joogaan runtii waxaan aad iyo dhibaato nooga haysta wax loo yaqaan civilism fana ama bulshada dhexdeeda ayaa naga haysta dhibaato weyn way isma qaabay karno isla ma soco karno wanaagii runtii waxaa moodaa in aanan ku dadaaleynin waxaa moodaa marka negative badan nagu dhex jirto sida awgeeda marka waxyaalo ugu weyn wax wayna dadka ka dhisnaa marka civic society ama civilism fun oo ah wanaaga horumarka dhaqaalaha in ilmaha wadankan lagu dhalo sida loo xanaanay lahaa waxaasoo dhan runtii ayaana bulshadeena Norway degan ku inaan ka bilaawno mustaqbalkan insha Allah ta'ala inaan wadankii markaas iyadoo qaabeysano sidaan ka sii fiican nageyn insha Allah هذا أنا وحير قدر صدق أنتم محمد شيعي يو دتوينز ما يصير مركز أساسا وحيد درونتي 9 أبريل سنة كهرة أنت أنا أساسا بالكهر بالأساس كهر واسكف أنا محمد وفدي سجل مربع وحديج نيه وحياة بدن يعني نيجو حيو سيدا مركب برشلونة ولا قيب سكرنا سيدا وقوف فضط وحنا يجو حيو وحكم ده وحارك وحياة بدن أرجعنا وكم ده ضد بدن ووده كان الصومالي وحرك جارب ونسوفيرنا ضد كذا قرب قبلنا أو قعدت كقاعدين أيان أرجني وحارجني إن كم قنت ماشى الصومالي ودك وحتو كبرتو واللي بدنا نيرتا habkay wadankan ugu dhisay lahay network ama network sida markay shaqooyinka uu si fudud u helaan way wadankan cusubnimo ka jirto waa ognahay laakiin taas waxa baabi'i karto hadda network dhisatid ama network dhisatid oo taasna waa nagu baraarujisayna dadweyne mindset furno sida ugu wacyigelin Soomaalida inay network dhistaan iyo habka u dhisi karaan hatta insha Allah waxyaabo kale nagu maxay ahayd nagu baraarujiyay dadweyne mindset asaasno waxa kamid ah waxa aragnay dhalinyarteen si baabaso dhalinyarteen oo meel xun ku jiraan marka taas waa fiirsan kari weyn marka waxa dhaanay in ka wacyi gelin taas muhiim ah waalidiintaba iyo habka waalidiinta dhalinyarta isku la shaqeeyaan ana kama daama dhalinyaro ku soo korno wadankan oo waalidna la soo kornay haddana aan xaasi family marka waxyaalaha kale ku jira marka hadda ku darsado wadankan waa sida runta ah hadda rabto wadankan inaad wax ka heshid ama khayraadkiisa ka faa'iideysatid marka ugu horeysa waxa laga baahan yahay afka inaad baratid waa kow mid kale marka Norway hadaanan wax aan cilmi haysanin way kugu adkaanaysaa cilmiga marka laba u baxaa cilmiga Norway ama Europe looga faa'iido midna waa mid xirfad ah oo inaad xirfad ku shaqeysid midna waa mid aad bachelor ilaa master ilaa PhD aad u qaadi kartid marka adiga labada hadda wax meel wax ka qaban adiga runtii waa ku baabaaysa wadankan dadka badanaan waxay u badan yihiin in labada marka dadka way yirihiin labada mid haysto way yirihiin oo dadka badankooda dhaxday ku jiraan taana waa wax aan runtii jecelnahay inaan ka wacyi gelino waayo wadanka Norway waxyaalaha ugu fiican dadka Ilaahay chance u siinay ku inay degaan ama sharci ku haysto waa inay runtii waxbarashadaas ka faa'iideystaan ama ay bartaan xirfad ama inay marka jidka dheeraa qaataan bachelorkii ilaa masterkii ilaa PhD mid kale cunsurnimada lagu sheegayo aniga ahaan hadda maanta Maxamed ahaan toos aan idin la wadaago Soomaalida dhexdeeda wax naga cunsuri badan ma jirto adduunka marka meel kasta aaday wax naga anaka dhexdeena ayaa cunsurnimo iskugu filan marka inaan ku marsiino marka marsiye ka dhigano wadan cusub baan imaanay waan la cunsuriyaa taa waa de wax aqli gal ah maahan waa wadankaagi waxaad uga soo carartay qof kula dhashay kula diin ah kugu dhaqan ah ayaad ka soo carartay waxaad imaatay wadan kale oo isku dhaqan isku diin isku af ahayn asa hadan waxa la wali cunsuriye waxaad ku laabatay kaliya fiirin meeshaad ka soo tagtay fiir waxaad ka soo carartay taa ayaa kugu filan tusaale buuxda marka waxaan fiican inaan beentan isku sheegin ma fiicno qofkiina been isku sheegin ma fiicno waana runtii isku sheegnaa sida markaas runtii aan horumar iyo isbedel bulshada dhexdeena ugu sameeyay insha Allah hadda ku darsado waxyaabada twins mindset ka qabano waa soo koobo waxa kamid ah dad waacuzumna Soomaalida heer ka gaar wadanka Norway dhinac walbo dad badan ayaan soo fardhiisana sida dadkooda ula qaybsadaan habka jidka ay maraan iyo waxyaabaha la kulmaan iyo sida ugu fududaatay in heerkaas ay maanta joogaan ay gaareen waxyaabo kala qaban wax waa shaqada dhinaca shaqada waa ka hadalnaa sida dadka waliba dhalinyarta markay jaamacada ka baxaan shaqo u helaan sida ugu fudud waliba dad badan ayaan casuuna hadda marka ugu dambeysay naag waxa keenay hay'ad la dhaho
oo performance bureau dhan chef ka ah oo ka hadlaysa marka shaqooyinka IT-ga sida loo helo iyo sida ugu fudud maalin dhaxas ayaan soo fadhiisnay waxyaabahaas loo qabanaa waalidiintan waa la hadalnaa oo sidii habkee dhalinyarta oo la dhaqmi lahaayeen markay noqoto korista iyo barbaarta taasaan nagu dhalisay dhalinyarta ilmaha yaryar u soo saarno buugaagtan oo maanta hadhowda insha Allah si fiican inta soo doono aan page-kana soo dhigno waliba dadweyne mindset so intaas waa in kooban page-ka sababta u furnay iyo waxyaabaha page-ka qabano anoo ku horeynaya markaan Cabdimaalik ganacsiga in bulshada laga dhex abuuro miyay tahay wax adag sidee looga dhex abuuri karaa ganacsi ay bulshada customerkeedu yihiin Norwegian ganacsigiina ay Soomaali leedahay waa su'aal aad iyo aad u fiican oo runtii marka dhinacyo badan fiirnay hadda inta bariyahan ku jirna ku guda jirnayna ganacsiga aan ka soo saarano oo shirkadda aan asaasano shirkadda loo yaqaan Digna runtii waxyaabaha aragna waxa kamid ah horta waa fududahay wax walba qaacida ayaa leedahay qaacidadaasna waxa qof walba inay fahamtaa muhiim waay dhowr jeer waa ka hadalnay haddana ku celinaa qaacidada oo ah ganacsiga daarabti wadankan inaad ka furtid restaurant aan noqoto dhaqmaha noqoto waxay rabtaa noqoto inaan kaliya marka furaysa istaraatiijigaaga ama fakirkaaga noo ahaado waaye kaliya inaad u furin Soomaali kaliya waa inaad u furtid dadka dhan that means marka waxa laga wadaa marka hadda for example restaurant aan ku soo qaadano maqaayad for example Soomaali ay rabtaa inaad furtid ka fur meelaha Norwegiga badan ku badan yihiin hadda Oslo kale Akebrig meel waxaa jirto Akebrig am national theater meelaha Norwegiga ku badan yihiin meelahaas ka fur maqaayad sida hadhow waxa ku saamaxaysaa dad badan oo kala duwan inay ku soo galaan maqaayadaada ganacsigana ku bato oo business fiican ka samaysid waa fududahay taas waa mid koowaad mid labaadna hadda rabta ganacsi naaf samaysid isku day networkiga wax oo tiyadata ka hadleynay xiriir dhiska inaad dadka Norwegiga la xiriir la samaysid ina xataa teamka soo gashatid dad Norwegia ama wax raba noqdo laakiin qof hore ku sii wadaayo oo ganacsiga geenay meel walba kalimaana ku ekaatid dadka ka dhalatay taas waa problemka marka nahaystaas halaas aniga oo arka aniga aan Cabdimaalik هذا مركز أنا قدر صدق رأيي كوساب سؤال صدق runtii sina uu adagtahay sina ma adko laakiin si way ku xiran tahay mardaayna qofka sidoo ugu baraarugsan yahay mashruuca uu rabo in uu fuliyo adiga dad mashruucaaga ama businesska ku soo koobtid Soomaali kaliya la rabaa aad mardaayna la beegatid meesha Soomaalida ama ajaanibta iskugu tagto taa marka de waxaad adiga ba sheegaysaa in aad bisratid in ganacsi la samaysid dadka Soomaalida ama dadka ajaanibta ah laakiin aad u fikirtid marka adiga si balaaran oo runtii ah waxaan rabaa ganacsiga inaan dad kala duwan shaqaaleysiyo ama dad kala duwan inay caawiyaan idan waa wax qofka sameyn karo mid labaad wax qofka markuu wax sameeynayo ganacsi waa muhiim inuu marka team ahaan ku teamka dhisayo waa inuu fikiraa Soomaali kaliya maahan waa inaad dad kala raadisaa waayo meeshan daartina marka noqoto adiga qof bulshada ka matalo ama ganacsigiisa ay wax ka matalaan waana dad kala duwan ee bulshada matashana waa in laga arkaa dadka aas-aasaya shirkadaas iyadana waa mid aad muhiim ah waana ku bilowdaa taas waay marka waa fududahay waxay ku fududahay waxa wadanka Norway wax kasto internetka oo qof kasta waxa jira page loo yaqaan altin.n wax kasto oo shirkad la aas-aasaya ama ID-ga sida loo qaabeynayo runtii halkaas baa laga heli karaa resource-ga inta lagu soo koobi karo runtii markay noqoto sida shirkad loo aasaaso Norway 5.3 milyan ayaa Norway degan runtii wax 2 milyan gaarayo waa dad runtii education ama ku sii dhow howlgab hadda wadankan wuxuu u baahan yahay runtii dad badan oo idea cusub la imaado oo la maalgeliyo waa xilliga uu fiicnay in history way markay noqoto Norway ahaan maalgashiga fikradaha kala duwan laakiin waxa lagaaga baahan yahay in aad ku baraarugsan tahay waxa lagaaga baahan yahay in meelaha laga helo resource in laga weynin waayo qof kasta jansiga wuxuu ka faa'iideysan karaa markuu ku baraarugsan yahay iyo markuu og yahay meesha uu seefta ama meesha wax ku qalanayo markuu aadi karo waa hadii adiga neefku hor yaalo aadan ogeyn neefka sida loo gowro ama meesha lagu qalo adin waa ka qadaysa dadka kugu dhowna way ka qadayaan marka waa muhiim marka qofka toolska ama aaladaha la isticmaalka noo raadiya taana waxay imaanaysaa marka waa networkaas lagu sheegay Cabdimaalik sheegana in network dhistid network waa marka dad isbaratiin
bulshadaada ku dhex jir ma xumo wax qurux badan waaye qof dhees mal wax dadkaaga nacam ka soo dhex bax laakiin ku dadaal in aad bulshada dhex imaatay arabtid in wax la qaybsatid in runtii baratid afkooda aad baratid sida wax u wadaan ganacsigooda sidoo kala wadaan daras cilmi waa dunkan maaha halisi ma wax dars adiga wax raadi research wax baar google ka isticmaal internet waasana leeyahay waxaas insha Allah taala هذا وحير قدر صدق عند حسوحان بيجي سنة من بروفيسور وده كان نور بيكسب دراسات سومالي ودراسات كسمية مركو رنتي وحده سومالي ده نرويجي واسكو لقب كلتشر هذا نقط لقنهان واسكو لقن وحي كسميين سومالي ده مجع لدد كبحسن إنه سوقشتا عرب ده نقطه عدان ده نقطه يعني مجع لدد كبحسن إنه سوق حكلان نرويجي هو سياسك مجع لدد كبحسن إن صور حاجة مركب حالا جرى وأديك إن نحكي شدتك مهم وكسود وينها المركز تاسمه كدر سلاعي مركز نقطة جناح أساس إيو مركز نقطة بشقة هذا شقة ربطت iyada laftirkeeda markaynu ka hadalno Soomaalida iyo Norway badanaa warbaahinta Norway Soomaalida waxyaha ka soo gudbiyaan negative-ka u badan oo wax positive ah أكمل سنة سيدنا مركا دين سؤال عن أنا يروح ودنا كوكرتي ويعني أنت ودنا كاتين سيدنا نيجاتيف كا بوزيتيف كنا يوتوس كنا وش النور بهنتي ده سؤال أن أرتمد هورسو نيجاتيف كما كلا يقرأي وواحد أديك قعنت هذا كوسم يستطيع أرتو حارب الصومالي ده إن شاء الله ما في صدمته إن أنا هل وحمشان وعد يو واحد أوجتا wax kasto adiga ka bilowdaan adiga da negative tahay oo negative bihisid negative ba ku soo laabanayo hada adiga positive tahay a positive bihisid positive ba ku soo laabanayso mid kalena waa inaan barno wax loo yaqaan mas'uuliyad qaadna mardu 30 sano ya burbur qarax dhibaato gaajo in haraad u dhimanay runtii meel kasta oo ku dhibaataysanahay taana waxa noogu wacan in aan mas'uuliyadda ka caranayno qof Soomaali ma arkaysid ama weerta marka runtii la sheekaysto bulshada ku dhex jirnaa hadda waxaas ka dhahay maahan qof kastuu isku dayaya in uu saaro dambiga qof kale wuxuu ku leeyahay wadankan Yurub jooga ma laga qabsado dawladdan ugu adkaysay waxa muddo qof kasta inuu ka cararayo mas'uuliyad asaga saarneed soo meeshan waxa ku leeyahay horta adiga mas'uuliyad qaad oo mas'uuliyad ka qaad naftaada ku aqoon yeelo wax baro wax fahan shaqayso adiga isku day in aad waqtiga 90% waqtiga oo Ilaahay ku siiyay oo xisaab la'aanta lagu siiyay adiga isgelisay taawto ku dadaal midda labaad haddii arbayna negative ka baxno waa in aan noqono bulsho ka wada shaqayso waxyaalaha horumarinta ah waana waxa hadda sababtan u bilaabay Tunis Master ay kamid tahay waa in aan ka shaqeynaa horumarinta civilism ama bulshada dhexdeeda waa inaas horumarinaa وانا كفائديسنا علمي وانا اسكو تاغرنا وناغ وان ان كودا شقينا هرمرك ميد كله وانا انا احترامنا كلا دوناشا دحدينا قف كان هادو كو راي اهين وانا احترامتا الهي ادون كان اسكو ما دغين اسكو كما دغين لا 8 بليون دد ايا كون لا دون كان dadkaas oo dhan kala fikrado way marka ina ku ixtiraamta dadka fikradana aad ay muhiim yihiin waa ina markaas negative darbi ina ka dhamaano waa ina ana ka hada negative waa Soomaali dhexdeeda muddo in negative iska sheegaysa dad xataa waxa jira runtii bulshada magac ku leh oo wax ugu horeeyo markii la wareysto oo negative bixinayo iyagana waxa leeyahay walaalayaal isku dayna positive ka shaqaysiin isku dayna negative ka aadan dadka ka bixinina aan dhexdeena ka shaqeyna positive ka anaka dhexdeena iska bilaawno waa sababtaan u bilaawno Tunis Mindset kow adiga horumarka lagu sheegayo adiga iska bilaaw dadkana ku caawi kadib insha Allah ta'ala sanada kadib waa insha Allah ta'ala horumar fiican waan sameey doona haddana waa jid fiican ayaa runtii Soomaalidu hadda hayaan oo wax kasta negative maaha positive badan jiro badan wax noo bartay dhalinyaro badan sanadii ugu dambeeyay insha Allah waxaan aaminsanahay 5 sano ilaa 10 sano soo socoto insha Allah Norway inay ka soo bixi doonaan dad إلا بعاده إن شاء الله تعالى تصنع ووحان ننتي إن شاء الله عن هذا مركز دراسات كثير آخر بإن شاء الله. هذا أنا إنه حركوا درسته سيابا أنا قبل كان نيجاتيف كأو ميديا أنا وجرو وإنا المحيط ارتدت كين وحبرتي الله الله يا ولي بجامعة على كبحي ونضعوا دون فيديو كان إن أي وصل لابتن تدكو
waxaa ka wada taas inay soo fiiriyaan dadkooda oo jaamacadaha ka baxaayo ra'yiga la qaybsadaan iyo habkay shaqada u heleen iyo sida usoo garab qabtaan sida loo helo markaas dad badan oo bulshadeena ee Soomaaliyeed matalayso oo jagooyin fiican wada haya meelo fiican ka shaqeeya taasna waxay noo matalay marka positive badan ka helno media waa dad badan ayaa waxay noo fadhiyaa jagooyin sare meelo fiican oo shaqeeyaan taas waa midda labaadna aan negative kan ugu bixi karno oo ah in dad badan oo bulshada waxaa ku jirta bulshadeen oo taye soo maxamed leh taye leh marka negative ama media ama wax soo gashay inaan naga bixin wax xun isku dayaan mar walba dhinaca positive keena naga sheegaan oo markay noqoto dadkeen wax baranayo soo maxamed sheegay dad badan ayaa jaamacadaha baranayo oo maasha Allah maanta dadaalayo oo jaamacad rabaan ka baxaan mustaqbal waddanka ku yeeshaan taasna insha Allah inaan ku soo kordhiyaan rabaa sida in muuqata waxaad ka shaqeynaysaan oo aad hadda la wadaagteen dhaqankii oo aad dadka Soomaaliyeed ama ubadka Soomaaliyeed aad afkoodii sawir iyo af Norwegian oo fahmayo iyo sawirkii xayawaanka ama shayga iyo af Soomaaliga aad soo barasaan iyada aragtidaas maxaa idinku dheliyay maxaase kalifay inaad abuurtaan buugaagta noocan aad u maasan tahay runtii marka aragno horta aragtida nagu dhalisay inaan buugaagtan soo saarno waa laba dhinac ay ka imaan kartaa mid ugu horeysa waa marka waxaa aragna horta dhalinyarteena waddankan oo aad u dhibaataysan weliba ongda marka oo aad iyo aad yani wax ka xumaadan waa identity wax la dhaho inaan yani identiteedka ama inoon heesan kii Soomaaliga oo heli waaye kii Norwegian oo heli waaye marka dhaxo ku dhum cunigi marka taas waxa ugu fakinnay hadda ka waran buugaag u soo saartiin oo ku fahmi kara afkiisa Soomaali iyo Norwegiga labadaba oo barakor ereyadiisa ugu horeeyay Soomaali taas mid gooni waa mid labaad waxa aragnay waalidiin Soomaaliyeed aad iyo aad oo beeshkina xataa nagala soo xiriireen oo aad u rajaynaya ama u xiiseynaya buugaag sidaan oo kale inay soo baxaan oo yani ilmaha loogu talagalay sida afkooda ugu bartaan afkoodii afnooshka waa yaqaan oo baanahaagii wixii ku baranaa laakiin af Soomaaligi iyo sawirayna ka arkaan buugaagta marka waxa ugu talagalnay inaan ilmaha 4 jir ilaa 14 jir ina ka faa'iideystaan wax geel lagu dhaho af Norwegiga kamelo kale iyo gaadiidka khudradaha qaybaha kala duwan xarfaha waxyaabahaas oo fudud sida cunugi ugu oofay ama ugu taran gareeyo sidoo u yaqaan hadhowda u fahmi karo taas ayaan ugu dhalisay inaan buugaag soo saarno horta run ahaantii qofka waa muhiim inuu afkiisa bartaa sidoo afka kale u barto taa waa cilmi baaris dheer kadib adduunka dhan waa isku raaceen qof kastaba qofku afkiisa kaga fiican yahay ama uu u yaqaano ayuu afafka kale adduunkan u barakaa midda kalena waa muhiim inaad ku faantid dhaqankaaga inaad Soomaali tahay kuwan ku faantaa waa inaad dhaqankaaga ku faantaa waa inaad afkaaga ku faantaa ilmahana waa in lagu baraarujiyaa naftirkooda ko yar maadaama ognahay hooyooyin iyo waalid waddanka ilmaha ku korinayo cunuga asagoo yarba waxa lagu tuurayaa marka xanaanad ama baanahaga qof cunuga marka wuxuu baranayaa afka Norwegiga marka kasoo afkiisa marka Soomaaliga aqaanin taa marka waxay keenaysaa marka inuu cunuga afkiisi si fiican oo soo u aqaanin waalidkiina waxa laga yaabaa in afka Norwegiga si fiican u aqaanin hadhow waxa dhacay marka wax loo yaqaan miscommunication misfahmayo marka la isfaham waayna dhibaato badan ayaa imaanaysa marka sanadaha ugu horeeyo ma dareemaysid waalid ahaan ma dareemaysid laakiin marka cunuga dhaaf 14 15 ayaa dhibaatada ugu weyn markaas dareemaysaa waa cunugan afkaaga iyo dhaqankaaga ma fahmayo kii Norwegigana wax waay adiga ma taqaanid ma fahmaysid marka labadiin ayaa waxa markii imaanaysa inaas fahmin marka waalidka Soomaaliyeed xilliga marka wiilkana gabartaan isma fahmaynin ilmihiina wuxuu leeyahay waalidkani dhib badan ayuu kan ma fahmayay taana waxay ka imaatay afka soo marka waxaan rabnaa marka insha Allah taala inaan marka ku soo ziyaadino bulshadeena buugaagtan oo kala duwan oo ka hadlaysa marka runtii xarfaha waxyaalo basic ah marka ilmaha noqoto insha Allah taala mustaqbalkan aan rabno inaan kuwa soo saarno oo inaba caadi lagu talagalay dadka waliba waaweynka ama si fiican u akhristaan ayaan rabnaa bibliotekaha marka la furayo Norway Dagmas bibliotekaha oo hadda ku yaala Bjørvika ugu weyn ayaan tagay maalinta la furayo tagay marka historiga marka naag la wadaagtay dabaqa labaad ayaa marka qaybta Soomaaliga ayaa soo istaagay anigoo marka la socdo xaaskay iyo labadeeda gabdhood marka naagta marka
وهي ما توي قرأت مركنا الصومالي ما دام هو يستاجر ماشى الصومالي واحد هذي إن بواق بدن الصومالي رنتي ماشى 100 لين وأنا أركي رنتي أفر بوق شنبوق واحد بواق يربع ما بدنين واللي حتى تويت بانك قري أو فيسبوك وجرا تويت كسرونتي وهذا حسب وقتها لكن واحد أغسطس سنة الله صار في إن مركان تاوي حد مركي قول مركا يعني مركز أنا أوجد رنتي إن جمع قنتهاي ضد بدن وحقر أفكار نروي الصومالية تانو waxay kamid tahay runtii waxyaalaha nagu dhaliyay alxamdulillah hadana buug ugu horeeyay marka daladii ugu horeeyay ugu guuleysanay hadda soo saarnay aanarna marka insha Allah taala dadkeena marka inay markaas ka faa'iideystaan insha Allah taala sanada soo socdaan inaan soo saarno buugaag inta ka badan oo tayo leh oo bulsho oo afkooda Norwegiga iyo Soomaaliga ciyarka ay wax ku bartaan insha Allah taala halkan aynu joogno waa center kulay barnaamijyo badan ka socda لوديون حاضر كقبلنا محمد يا عبد الملك أهان. سؤال في عن ماشان هذا عن جبنا ما تنوصل بوقتين مجيء هو ستارت لاب ورمتي إن نروي إن ماشى مركز نقطة التكنولوجيا مثل أساس عمل لسه بلاتفورم أما شركة تكنولوجيا وماشى نمبر 1 نروي رمتي أنا الحمد لله صوغنا نوفمبر سنة اللي صوغنا في الله بكون إلى بعتنكي شركات بدنا مركا على فدينا وكل دوين أو مركا ستارت أما هذا باللعبة مركا شركات هذا أساس جناسية مركا شركات بيعاونيان مركا وفديان مركا نتورك وفديان العق إنفستر إنه هلان العق سوقاتان مركا ماشان وحنا كنا فدينا إن of course دوا عنا دائما هذا كوجر سوقلني وحنا فدينا إن شركات أساسنا ومجي هذا اللي يقانو ديجنا إن ديجنا مركا أنا رب إن شاء الله تعالى سوق لوتيجا إن kala duwan inaan marka u sameeyno platform iyo app ee markaas afku barakara Norway u fududeynayo wax barashada ka caawinayo iyo sida marka u dhaxgeli lahaayeen bulshada Norway afaf kala duwan oo ku hormari doono Soomaaliga insha Allah kadibna ku xigto marka af Tigreenya oo af Eritreanka ah kadibna ku xigi doono af Carabiga oo ku dadka soo galootiga Syrianka loogu talagalay ayaan insha Allah taala aan hadda si fiican rabnaa in aan u dhisno marka platform iyo app oo meel marka technology-ga dadka aasaasayo runtii ay soo galaan sida maxamed sheegay shirkaddan meeshan waxa u fadhino waa shirkad inaan dhisno social entrepreneurship ah waliba oo caawinayso sanfunaha ama bulshada waddanka ku nool Norway marka shirkaddan waxaan ugu aasaanay maxamed waxaan ugu dhalisay fikraddan markaan horta twins mindset furnay waxyaabo badan ayaan ka ogaana bulshada dhibaatooyinka ay ka haysato for example sida EDE loo galo wax looga buuxiyo sida naafo kale sida iskatka iyo waxaas loo buuxiyo fikradaas ayadoo lagu dhalatay iyo fikrado kale aan maxamed haysan isku darsanay waxaan oo soo baxday shirkaddan oo Dignal lahaa inaan asaasno waan ku guuleysanay alxamdulillah oo meel fiican ayaan soo galnay runtii meel aad u fiican waddanka Norway markay noqoto shirkad marka dhisaysid waliba ku dhisaysid ama app ha noqoto ama platform ha noqoto waa meelaha ugu fiican lagu dhisi karo marka alxamdulillah haddana waxaan haynaa jidkii oo insha Allah sanadaha soo socota waxyaabo badan ayaa naga fili doontiin waan arki doontiin insha Allah shirkad fiican ay noqoto oo caawiso soo galootiga iyo dadkii inboundaryasha oo hadda already degnaa wax badan waddanka oo wali waddanka fahmi waaye oo wax ka qabsi waaye shirkadda waxay u taagan tahay dignaa digitalisering including greenderskap network iyo arbeit runtii waa intaas ku keenay riyaasha dhan oo runtii ugu muhiimsaneed qofka inuu digitalisering waa ognahay adduunka maanta uu ku socdaa xawli aaladda internetka in la isticmaalo ama digital qofka inuu noqdo waa muhiim dad badan oo runtii Soomaalida waxaa joogo digital ah laakiin hadda ay ku leeyihiin ma aqaani haddii adiga aad isticmaashid Facebook aad isticmaashid TikTok Snapchat Instagram ani waxaan aaminsanahay inaad tahay qof digitalka ku hormaray laakiin waa inaad u isticmaasho of course wax adiga anfac ku ah ama wax adiga horumar ku gaarsiin kara waa inaadan u isticmaalin aaladda loo yaqaan digitalka ama social media wax runtii adiga waqtiga ka dayaca ama waqtiga aad ku lumisid taa waa runtii qofka in uu runtii aad iyo aad uga fogaada marka taas ayaan rabnaa insha Allah taala markaas inaan marka app ka soo saarno dadka marka waddanka imaanaya marka ilaa dadka waddanka joogay oo runtii ku dhibaataysan xagga afka shaqada inay isticmaali karaan soo qofka dogaar damuun soo dogo ila boorka Norway waxaan rabnaa insha Allah taala in ay noqoto appkeena waxa ugu horeeya qofka lagu salaamo lahu soo dejiso hada ku hadlayso Soomaali ama Tigreenya ama Carabi
insha allahu tacaala sida markaas u bartaan afka dhaqanka waddanka Norway iyo inay fahmaan sidoo kala socoto runtii Norway ahaanba insha allahu tacaala